daawadayaal hargal wanaagsan waxaan hargalkan ku soo qaadan doonaa maanta sidee bay tahay waxbarashada Soomaaliland iyo waqtigan maxay ku jirtaa waxbarashada Soomaaliland waxaan ku wareysanay mid ka mid ah salaadiinta Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Axmed Suldaan Cabdiraxmaan nako qaybaha kala duwan ee waxbarashadana wax ka weydiinay suldaanka daasad caana boora lagu fariisto inta dugsiga magaalada caasimadda joogna ay ka kooban tahay ka hana qaaday ay kooban yihiin baa jirtay jaamacad waqti aan jirin baa jiray dugsiyada sare ay kooban yihiin baa jiray maraaxil fara badan bay soo martay laakiin maanta meel wanaagsan oo muddo kara oo qiimo leh oo lagu farxo oo lagu faano ayna marayna xagga waxbarashada ahaan caafimaadka qabta waxa weeye arday reer Soomaaliland oo qolada ku jirta private sector-ka qolada public-na oo ardaydii reer Soomaaliland marka in la inta deeqa waxbarashada halaad bay u koobeen in la kordhiyo dawladda ay rool ka qaadato ay soo kordhiso waxyaabo kale deeqa ay soo kordhiso dabadna si siman loogu qaybiyo private iyo public ba ayaan anigu ku talin lahaa ilana muuqata dawladda xogdoodaysa in ardayda private-ka dhigta iskuulada lacagtooda ay qaali tahay $50 iskuulka private-ka laga bixiyo jaamacadda laga bixiyo oo dawliga ay dayarto aragtida ay dawladdu qabto miyaa loo dhigto sultaan waa mid sax ah wallahi dee kulli xooyee ilaahay dadka ma simin oo isaga rabbi baa dadka arsaaqada u qaybiyay oo ummadda karaysa inay private-kii ardaydooda ka bixiyaan iyo in aan karayn labadiiba way jiraan waxana badan runtii inta aan karaynin private-kiina dee qayb dhan oo bulshadii ka mid ah oo ardaydii marka 3 meelood loo qaybiyo 30% aan ku qiyaasi karaa ma 25 ayay gacanta ku hayaan marka waxa muhiim ah in wixii inta la isla wada eego dee kulli waxbarashadiina sidii loo tayin lahaana dee kor loo qaado private iyo public-na dawladdu kulli ka wada mas'uul ah de manfaacadii bay leeyihiin qolooyinka waxaan la socotaa in waliba bishan arday fara badan ay soo qajibay jaamacadaha dawladda waxaan ognahay arday badan oo hore jaamacadaha soo qajibay sanadadii hore inay joogaan yani aqoonta dawladdu in qorshe ay u sameyso ardayda tirada badan ee soo qajibay way dawladdu way ka saartay waran oo mas'uuliyadda koowaad dawladda ale waxaan seen qabaa kulli dalkeenu maanta heer aynu macdan soo saarnay maynaan gaarin batroolna hadalkiisa labadu way ka sii dambeeyaan waxa muhiim ah oo siyaasadda wasaaradda waxbarashada ee dalka aan kula talin lahaa in xoog la saaro kulliyadaha maanta sources-kooda ay manfaacadsanayno sida kulliyadda beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga dadka kulliyadaha aqoontooda leh in la kordhiyo oo la kobciyo oo kor loo qaado kulliyadahaas waayo waxa ku dhamaan maanta aynu manfaacadsanayno ee ardaydeenu ay maanta wax ku soo saari karaan waxa weeyaan oo kulliyadka aan ku sheego istixaaq kulliyadood weey waxa kale oo muhiim ah ku talin lahaa in dugsiyada farsamada gacanta inta jirtana la kordhiyo oo la kobciyo kuwa kalena la abuuro gobolada dalka oo dhan iyagana laga sameeyo oo kor loo qaado si ardaygii haddii uu deelan dhamaantood xafiis ma wada fadhiisan karaan nambarka ardaydu uu badan yahay every year-na intaas soo qalin jabinayso tiradii mar walba sanadka ka dambeysay kobcaysa siyaasadda wasaaradda waxbarashada tii xukuumadda waxbarashada ku aadaneedna inay la kobcdo oo istiraatiijiyad fog ay ka yeeshaan sidii ardaydaasi loogu buuxin lahaa meelo kale oo muhiim Cabdiraxmaan Jumbo RTN TV